dagaal u dhaxeeya ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo kuwa la magac baxay badbaadada koonfur galbeed ayaa waabarigii hore ee saaka ka qarxay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen guri ku yaala xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo, kaas oo uu degan yahay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Fargeeti oo ka mid ah shakhsiyaadka ka soo horjeeda muddo kordhinta halka sano ee madaxweyne Lafta Gareen. rasaas xooggan ayaa in muddo ah laga maqlayay gudaha magaalada Baydhabo, kuwaas oo isku adeegsanayeen labada dhinac. goobjoogayaal ku sugan xarunta gobolka Baay ayaa keenan u sheegay in weerarkan oo bilowday waabarigii hore ee saaka uu socday in muddo ah, waxaana wararka hordhac ah ay sheegayaan inuu jiro khasaare nafeed. dhinacyada dagaalamay ayaa weli ku sugan magaalada Baydhabo, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan inuu jiro is-aruursi ciidan iyo cabsi ah in mar kale Baydhabo la isku farasaaro. agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay in ciidamada amniga oo roondo ku jira ay la kulmeen jidgooye ay dhigteen koox burcad ah sida uu hadalka u dhigay. ciidamada amniga ayaa la kulmay koox burcad ah oo jidgooye dhigatay, kuwaas oo rabay in amniga ay qalqalgeliyaan, ayuu yidhi afhayeenka. dagaalka saaka ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa laga digayay maalmihii la soo dhaafay kadib markii uu dhacay muddaxileedkii madaxweynaha koonfur galbeed 19 bishan, iyada oo mas'uuliyiin mucaarad ah oo rag hubeysan wata ay Baydhabo kaga dhawaaqeen golo ay u magac dareen badbaadada koonfur galbeed. cabsida ah in mar kale isku dhacyo hubeysan iyo digniinta la xiriirta furimaha nabadda ayaa joogto ahayd maalmihii la soo dhaafay, balse saaka ayay dhaceen waxyaabihii laga digay muddooyinkii la soo dhaafay, taas oo ahayd in Baydhabo gudaheeda ay ka dhacaan iska horimaadyo hubeysan.